Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kulana hadda soo dhamaaday Man City Forest kulan isku jir marxay runtii si dhahay eber ku dhamaan doonaa laakiin taasi waxaa diiday Odson Oday ayaa diiday wuxuu yiri meeshan eber ma loo kala baxay hal eber loo kala bixi doonaa Guardiola madaxuu qabsaday daqiiqad 83aad oo ciyaartii geri loogu bedelay oo sidoo xataa break ay shaataa wax waaye is okay waayo kaalinta afraad oo ku jiro waa lagu haystaa oo Chelsea waxa ku sii haystaan maxay ahayd Newcastle laakiin wuxuu sidahayay runtii kooxdan xataa bareejo ka qaado laakiin way dhici weysay bareejada xataa waa loo diiday oo Odaya wuxuu yiri halkan anaga xureysanay Nottingham Forest maaha koox oo ciyaar gasho naadiyaashii waaweynaa kala maxay Liverpool iyo Arsenal halkan bareejo lagu qabtay oo eber City runtii si walba u ciyaartay oo wax waaye ciyaar fiican ay soo bandhigtay haddana wax waaye way sii socon weyday inay xajisa ciyaarto gool ay la yimaado ciyaaryahankeeda weynayo Haaland joogay De Bruyne Foden dhamaantood way joogeen adiga si walbana way sameysay Man City oo lagu yaqaan inay kubadda ka haysato laakiin Man City sanadkan wuxuu u yahay waayo iyagoo ahay boqoradii Premier League haddana xaaladdan ay ku jirtaa Man City runtii Man City wax kala ka maqan oo nasiibka ka maqan Man City waayay awooddaasna wax waayay ciyaartoy tayo leh haysataa haddana mararka qaarkood oo ciyaartoy tayo leh ayuu nasiibka ka helin ama form xumo haddaa qaadato Man City marka xaaladdan ku sii socon doontaa intii ka soo kabsato Man City kana afraadeeda wax waay heli doontaa booska champion Man City hadda wax kale ma u carareyso FA iyo kan afraadaas oo kaliya maahane wax kale oo carareysa ma jirto marka ma ka faa'iideysan doonaan badashkan laga badiyay Chelsea Newcastle xataa Bournemouth dabada ku soo hayso kaalintii saddexaad iyo kaalintii afraad waxay noqotay meel ay shan koox ay ku tartamaan horyaalkan xiisihiisa wuxuu noqday kaalintii saddexaad iyo kaalin afraad waayo waan ognahay Liverpool iyo maxay ahayd iyo Arsenal halkii kala joogaan oo konton iyo afar iyo maxay ahayd iyo 67 farqiga u dhexeeya waan ka warhaynaa Liverpool ama maqribka soo galasheedana waxay runtii kala kulanto al arka Southampton waxaan ku badaa wax walba ka dhici karo inshallah bidnillahi kulankaasna mar alaal markoo dhamaado waan ka soo falanqeyn doonaa inshallah hadii la yiraahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalahayna waxaan idin leenahay subscribe laati shati commentiga inaan u garab istaagtana jeclaan lahay inshallah bidnillahi khayr caafimaad idin rajeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh